هدي أن دليل الدولة هدا جرتا معناه ذو ماهن إلى الدولة نعبهاي هدي أن أماننا معناه ذو ماهن إلى الدولة شعلهاي ووحي كسر كذا عن نعبهاي وين عن نقطة قف بسل دولة لماذا سيتهي فهلسن وحنا ليني كره وحنا أماني كره لكن هذا يسمى نقطة والدولة مركز جرتا أتكوتا يرتكلي والدولة دي يا شيكاني وضواي الدولة دي أراء قبيل كينا أراء هور كادو ياي هذا حاشا قف قوان قادة كرمتي ما هيد الكوسو الله تتوبق يا مالنا والدولة فدر الكا وعي السواد في ذي داير على السوق waxaa lagu wadaa in xilmihiiba gacanta loo geliyo daahir adigu waa taqaanaa anuguna waa aqaanaa cay maayo bal hadda u fiirso waxaa la sheegayaa xilmihiiba in loo magacaabay laakiin weli aan lagu dhawaaqin bal hadda qodobka u fiirso daahir marka xilka nuucaasa ma istaahila mise ma istaahilo daahir adigu waad ogtahay anna waan ogahay waa saqarjaan bal hadda u fiirso hadda ceeb maaha waa saqarjaan runtood sheegtay ceeb maaha daahir waa ninkii gabdhaha caayayey ka ooyinayey ilmaha ka ooyinayey aan dee sariiganayn ee adiguna aad taqaanaa anaan aqaana dee nin la sheegsheega maaha bal hadduu fiirso dowladda marka daahir doonaysa inay xil siido daayo oo naqaanay oo isaguna asaga daahir ka sii darnaay ee gabdhaha caayi jiray ee muuqaalada ka duubi jiray gabadhii haddaa mid kuu soo qaato nicmo qorona ahayd ninkii muuqaalka ka duuba dayo ahaana guddoomiye degmaa laga dhigay bal dowladda marka nuucaasa ee saqarjaamiintii isku soo urursanaysa bal magacu bixi adaan ku weydiinayaa dowladdii dowlad soomaaliyeed soo marta ugu saqarjaansaneed ma tahay saqarjaamiintii ma isku salaameen xafiisyadii dowladda ma samaya hageena loo wadaa war hageena loo wadaa ma waxaa la rabaa in la sharciyeeyo gabdhaha in la caayo ma waxaa la rabaa in la sharciyeeyo ilmaha in laga ooyiyo ilaa ninku hadduu xil qabto wixii sharci buu ka dhigayaa qofka waxaa la yidhaahdaa dastuurka waxaa ku qoran soomaaliya qofka xilka qabanaya waa qof aan dalka iyo dadka dembi ka gelin daahir haddaan u soo laabto deeyo wuu dhaamaa deeyo waa dhaamaa daahir haddaan u soo laabto ummadda soomaaliyeed dembi weyn buu ka galay markii laga soo tago gabdhaha iyo islaamaha iyo carruurta uu ka ooyinayo dalkooba dembi ka galaba de wallaahi waa walaalkay oo maantay waxba qari maaye waa nin habar gidir ee ka leexa dhihi maa wallaahi aana dhehin oo bilaahi tallaahi wallaahi inaana dhehin anigu soomaalinimada iyo dowladnimada dhaafsan maayo qabiil laba qodob baa u dhaafsan maa soomaalinimadu dad bay igala dhaxaysaa soomaaliyeed oo raas casaar ilaa raas gamboon degan qabiilkuna dad baa igala dhaxeeyaa marka dadka qabiilku igala dhaxeeyana gooni baan u ixtiraamayaa kuwa dowladnimadu igala dhaxaysana gooni baan u ixtiraamayaa waa inaan qolo walba goonidooda u ixtiraamo waxaa badan marka oo maanta la taagan yahay dowladdii soomaaliyeed oo dadkii soomaaliyeed igala dhaxaysay qabiil dhaafsan maayo bal hadda u fiirso oo dhihi maayo daahir waa nin habar gidira oo walaalkeeya ceebihiisa astur dhihi maa wallahi ana dhahino xaasha daahir xilkaa ma istaahilo xiitaa haddii laga maarmi waayo oo uu noqdo ninka xilkaa nin ka mudan oo uusan jirin waxaa la rabay si hoosa in xafiisyada dowladda loo geliyo la yidhaha war daahir howshaada wado laakiin miidiyaha in la keeno ummadda soomaaliyeed la naxiyo dadka dowladnimada nala eeganaya laga yaabiyo caqli maahan asaga midkii la ekaay ee hebelka jamaal maa la dhahaya nimanka shahaadiinta muuqaal ka soo duubayana la tarxiilo sheekadu labadaas markay dhacday dadkii dowladnimada nala lahaay sawir baa waxba u sawirmay waxaa u sawirmay sheekadii odawaay ee ahayd dowladda aniga ah qabiilkan aniga ah maxaa laga bedeli karaa oo waraysiga uu ku sheegay intaas qodobkaas kaliya hal mar ila dhageysto adiga beelahan yaa ka soo jeeda jufaan yaa ka soo jeeda aka cishoonin ceeb ma lehe ishaas waa qalad marka taasaa gelin anoo sharaxdaa farqiga u dhexeeya qarannimo iyo qabiil waa isku dhafan yihiin qabiilka anaa ah qarankana aniga ah sidaad u kala saari kartaa adiga dowladdu marka
magaca noocaasa maanta ma qaadata mise ma qaadan war dowladda ummad Soomaaliyeed baa nala leh xasan sheekh maxamuudow wadaa madaxweynaha iska socdow dowladda ummad Soomaaliyeed baa nala leh waxaa laga rabaa dadka Soomaaliyeed gees walba degan yihiin inaad isku wado laakiin baasha inaad saa u walaaqdid ruuba boqolkiiba boqol waxa wax walaaqaya xasan maaha runtaan idin sheega xasan waa nin bahluul oo waxba kala ogeyn dadka wax walaaqaya waa dadka xilalka u haya baasha walaaqitaanka ka daaya dowlad Soomaaliyeed baa la doonayaa anigan kaba yaraaho maanta dowladda ku suntan oo ku qabiilaa waxaan doonayaa midnaba Soomaaliyeed Soomaalida loo cadaalad falo isku si wax loogu maamulo in la simo ayaan doonayaa qaabka maanta wax ku socdaana sidaas maaha dowlad wada saqarjaamiin hadda dowladda ka dhigtaan waad ku soo aruurisaan intii saqarjaamiinta ahayd wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaysan meel gaarayn oo weliba saqarjaamiintii laftirkooda lagu soo xulayo qaab qabiil waxbaan uma qari karee war baasha biyo naga mariya ilaahay baa naleh baasha wax ku yaaciya shiina coloy alla casuubo wallaahi oo billaahi oo tallaahi waa dhaartee xilka maanta daayira loo dhiibaa la leeyahay dowladda federaalka xil looga dhiibaa la leeyahay shiina ka mudan ka ninkarmeedsan ka af Soomaali badan ka dadahanimo badan shiina wow ka sarigtaa waxyaalaha qaarkood kama suurtowdo inuu gabar Soomaaliyeed inta soo hor istaago oo yira cawradeeda uu ka shakeeyo wallaahi idin ka suurtooban Cabdulqaadir Boos baa lagu wadaa hadda la leeyahay isaga xil baa loo dhiibayaa wallaahi waa nin odaya kama suurtowdo anigu baasha qabiilay maayo laakiin qofka anshaxa xun waa inaanu anagu haddaanu Soomaali nahay takoornaa waa inuu dadka nooga duwnaadaa hadduu qofku marna uu ku qabiilaysanayo marna uu ku caayayo marna ilmahaada caayayo waxaas maxay tahay beer lacabsigaas muxuu yahay war saqarjaanku waa saqarjaan mar waliba saqarjaanku qabiil ma leh qofka saqarjaanka qabiil ma leh naga daaya ilaahay baa naleh haddii kale dowladda burshaxaar la marinayaa wararku waxay sheegayaan xasan sheekh maxamuud daahirinow qadka taleefanka uga hanjabo yiriniyow hura baa kugu soo siinaya waxaygii waa ku caayaya caay laga cabsanayo qof shakhsiya ayaa dowladdii dhammaadika loogu dhiibay war ummad Soomaaliyeed oo 35 milyan lagu sheego ayaa dowladdan federaalka ka dhaxaysaaye xasan sheekh maxamuud oo qaabka aad wax ku wadid jooji Soomaalinimo wax ku maamul nagada adeerow gacaliyo sidaan waxa dhowro karna maaha waxa yeeli karna maaha ummadda Soomaaliyeedna raalli kama aha aad iyo aad baad mahadsantihiin muuqaalkaygaan hadduu ku soo gaaray oo aad tahay qof Soomaaliyeed sheerta sii taabo haddii aad tahay raggii uu sheegay odawaay oo ah qabiilkaana ah qarankaana ahna ee qabiilka aaminsan ee dowladnimada dhaafsanaya qabiilka haddaad tahana muuqaalkayga faraha ka qaad dhowr qof aan ogayo halkaa ku jirto madow iga jiro oo aaminsaneynba inaan wax la macaaradi karin oo waraadin xaasha dimuqraadiyad baa la joogaa xor baa tahay waa anaad xitaa soo cay kartaa xor baa tahay si munaasaba dowladda wax ka sheegi kartaa dhaliili kartaa qofkaad rabto dhaliishu ceeb maaha aad iyo aad baad mahadsantihiin muuqaalkan shafradi cala alsaara